بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada casharkeena noo socday xirfadda xulashada lamaanaha waxaan ku soo jirnay dhaqankii oo aanu ka soo qadanay qaybtiisa hore waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhaqanka khaldama sheekooyin ku saabsan inaan isla sheekayno oo kala duwanaanta ay tahay deegaanka dad ku nool yahay sababay u tahay waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo qofka ugu qiimo badan ee bulshada qoyska ah ugu qiimo badan ama bulshada ugu qiimo badan waa hooyada hooyadu marna sodoh bay noqotaa marna waa hooyada adeeg ku dhasho ilaahay ka beeray markay sodohda tahay magaca waxa lagu baxshay in lagu qiimeeyo in lagu sharfo in lagu asturo waxaan rabaa sheekayna soo qaato sodoh ku saabsan sodoha qaarkood gobolada qaarkood waxaa dhimasho ku ah in ay timaado guriga gabadheeda in lagu dhex arko inay la noolaato iska badbaado waxay iska dhowraan ninka xataa inay arkaan iyadoo gurigeeda uu joogo markuu ka maqan yahay guriga soo booqataa haddii kale waa u timaadaayo isagoo inta u timaado ayay ka noqotaa ee guriga soo ka maqan xataa waqti kale kuma sii raagto xilaalin iyo xushmayn ay ilaalinayso wiilkaa sodoga u tahay inuu ka qaato aragti khaldan inay wax wada cunaan iyo inay arrimo qoys ka sheekaystaan xaggaba iska dhig aragtida qaarkood iyo waxyaabaha qaarkood bay isku diidaan meelaha qaarkoodna sodohda waxay go'aamo ka qaadanaysaa ama go'aamo ka ridaa xaaladda guriga ka jirta ee ka dhaxeeya wiilka iyo gabadheeda iyo wiilka qaba markaan ku leeyahay marka dhaqanka waa inaad fahamtaa waxaan rabaa inaad labadan qodob sheekadan ku socotid marka sheeko waxaan soo qaadanaynaa sodoh ka garnaqday gabadheedii iyo ninkeedii gogoshoodii ka garnaqday ayaan soo qaadan doonaa oo sheeko aan maqlay ah oo laiga sheekeeyey ah waana dhici kartaa in gobolada qaarkood ka dhacday waxaa laiga sheekeeyey in gabar ganacsataa oo maxaan ku yidhahdaa xoogaa iska jeebuuran oo garoob ah ay shukaasatay wiil dhalinyaro ah wiilkiina wax ma hayo waa la heshiiyey marka wiilku hatii guriganaa dhisaya wax walba anaa hagaajinaya laakiin adiga waxaa lagaa rabaa hal shuruud baa lagaa rabaa shuruuddaas maxay tahay habeenkii in aad habeen walba markaan nimaano inaad 4 wareeg gashaa lagaa rabaa 4 wareeg inaad gashaa lagaa rabaa ninka wuxuu yidhi 4 wareeg iska 5 iyo 6 baan geli karaa okay waa lagu heshiiyey heshiiskaas ku dhammaaday waa la aqal galay hooyadii baa la degan oo qol ku degan ayaa hooyadii degan tahay halkaasaa lagu wada noolaa hadda qofka bini aadan weeye wiilkii markuu muddo sidii u rafanayay u ordayey ayay ka daba timid gabadhaana dee noloshii gurigii iyo kharashkii bay bixiso ninnimadaasay dhowranaysaa iyo heshiiskii ay gashay haweenkii dambe way aragtay inuu soo tabardareeyey asagiina bahashii waa ka hortimid wuxuu goostay marka in uu hal ka boodo oo khiyaameeyo iyaduna difaac bay ku jirtaa wareegii koowaad ee kiilaa markii la galay kii saddexaadna la marayo yuu yidhi afarta waa dhameeyey markaasay tiri waa 2 waa la murmay marka asna waa 4 buu yidhi iyaduna waa 2 bay tiri waa la murmay marka murankii waxaa ku soo baxday sodohdii markii la murmay lama aamusinoo waxba lama waran waxaan annaga hawl naga dhexaysaan ku murannay wax kale ma jiraan lama dhihine sodohdii warkii waa loo sheegay heshiiskaasaan galaa la yidhi heshiiskiina saasuu ahaa gabadhii bana dacwoonaysa sidaa darteed heshiiska uu ka baxayoo 4 jeer 2 ka miduu sameeyey isna wuxuu leeyahay waxaan sameeyey 4 waa dhamaystir sodohdii marka maxay samaysay way aamustay daqiiqad markii la soo waxay tiri waxaan idiin ducayn maandooyaalo waa idiin ducaynaa horta aniga waxaan idaa ma yeelaysid haabay dheh maadaama hooyo aad tahay waa yeelaynaa intaa warka dhan bay iska dhaaftaan maandooyinow hadda kow ka soo bilaabay tiri kow hadda hala soo bilaabo macnaha halka waxaad ka garanaysaa macnaha inkastoo sheekada sheeko komika ay ku tahay oo qosalna ku jiro macnaha meesha ku jira waxa weeye in maamadii ay go'aan ka qaadatay gurigii gabadheeda iyo wiilkii qabay dhexdoodii wixii ka dhacayna go'aan ka qaadatay waa sambal aan soo qaadanay meelaha qaarkoodna waa khatar marka adiga waxaad fiirisaa qofkaad gursanaysid siduu xididka u arko guriga siduu u arko siduu nolosha u arko waxyaasoo baad fiirisaa sheeko kale waxay ahayd nin aan aqaano anigu aan shakhsiyan u aqaano oo saaxiib ahayn oo gobol aan ku wada noolay ayaa gabar qurux badan gursaday gabadhii qurux badan oo isjeclaadaan bay ahayd waa aroostay gabadha weelii imaadereeda u yimaada guriga qolka jiifkay galaan waa ugu sheekeeyaan waa 2 nin xumaan ma samaynayaan laakiin hab dhaqankooda xumaa oo waxay ahayd inay guriga meesha ay ku leeyihiin ka fariistaan qolkii fadhi jiifka ee walaashood lagu qabay ayay soo galaan halka ayay walaashood ugu sheekeeyaan gabadhuna way ka xishootaa ninkii gabadha qaba arkay dhowr jeer
maalin dambe wuxuu ku yiri walhaade gabadhii wiilasha guriga halka kuma lahane qolka fadhiga ay leeyihiin qolka chiefka aniga adigu gaar u yahay wiilasha qolka chiefka fadhiga ugu sheekay oo chiefka ka daa waxay tahay see ugu sheego wuxuu si tartiib ugu sheego halkaaba gee adiga waa yahay tiri adigu xoogaa gabadhii waxba ka khaldamay indaa waxay ku tahay ninkii qolka chiefka waa diiday waxaan ku yiraahdaa qolka fadhiga wiilio fariista arrintii bay ka xanaaqay waxay u qaateen markii inuu ka shakiyay oo waxay leeyahay ma anagu naga shakiysay digan adin noo ka shakiyay war ma aha saase nidaamku saas waa ka duwan yahay halka walaal oo imaado halka ugu sheekay ilaa ku qabi maayo ma ninka anaga niyiri qolkaniga hayga baxaan ba ku qabaya dagaal baa loo labistay ninkii waa loo tagay fur gabadhan oo maxaan ku furaa dad fur wada wanaysa hadda waa facts ana goobjoog ah ma aha wax kale iyo wala ii sheega ma waa la murmay ninkii wuxuu yiri gabadha furi ma yeeshaan anaga isguursanay aabaheedii walaalka la dhashay ma tihiin qaraabatiin maadir baa tihiin haddana waxaad ka hadlayeen oo ka garbaxaya haddana waxaad ka hadlayna waxaan ku leeyahay in nabad geliyo war ma yahay ma baqaysid wala dan tabiib laana ninka xogaa Soomaalidu waa isugoodu qaawiyaan way ka yara badnaan qoyskooda ka badnaa ninkan qoys yaraan baa la filay marka in laga ceyrsado gabadha la rabo waxaan ka bilaabatay qolka adinku ma leeyahay fadhiga tagay adu waa la dagaalamay waa la saxabaday xabada la soo qaatay ninkii waa la xabaday waa ka badbaaday mar kale asoo magaalo jooga la xabaday wiil la socday baa nimankii ka xabaday nin baa dhaawacmay qoladii wax soo weerartay oo gabadha xageeda ah waa la daaweeyay subaxii dambe asagii hadana meel maray laba wiil waardiyaa wata ayaa la soo weeraray nin baa hadana ka dhintay nimankii gabadha ka dhashay hadda gobol kamid ah Soomaaliya ka dhacay maxaa la marayaa hal dhimasho iyo hal dhaawac ah oo gabadha xageeda wiilashii ah arintii wax baatay nimankii meel bay galeen dad dhalinyaro ah oo Malaysia waqtiyada Malaysia wadanka xukumayay yaa ka xumaaday waardiye ka galay ninkii waardiye ka galay iyagoo nimankii waardiye kaga jira yaa qoyskii gabadha wiilkii hore uga dhintay ay soo weerartay iyagoo ka xun ninka ka dhintay mar kale nin laga dilay way qaymaraysaa laba nin iyo nin dhaawac waxay noqotay in wiilkii meeshii muddo lagu hayo lagana saaro oo Mareykanka fiisa loo iibsho halka uu ku galo isagii xaaskiisa iska daba tagaan maxaa ka dhashay intaas maxaa dhalay waxaa ka dhalay war guriga meesha leedihiin ka fariista wax kale oo ka dhashay ma jirto aqal xumay ka dhalatay nin sayid gabadh ninku waa saydigood ma ahayn boqolka inay galaanba inay meelaha fariistaan ma ahaynba gabadha soo salaamaan qolka fadhiga ugu tagaa inay u sheekeeyaan baa laakiin guriga meesha leedihiin ka fariista habdhaqanka ka dhashay dhimashadaas oo keenay ninkii gabadhii maanta Ameerikooda nugiyay geerido ma maqal laakiin taas goobjoog ana waxa marka waxaad garanaysaa sheekooyinkan dhacay oo dhan dhaqanka asalka wax dhaqanka laga leexday way dhaqanku marka waa muhiim marka hab dhaqanku waa muhiim waa waxyaabo lagu kala duwan yahay ee dooro qof aad isku dhaqan tihiin inta la kulmin waxaadan qaadan karin oo ay lamaantaada ama ehelkeedu caadi ah adiga lamaantaada ehelkeeda caadi u yihiin laakiin adiga ma qaadan kartid oo kuma soo korin hab dhaqanka ma fahamsan sidaa darteed aad iyo aad u taxadar waxaan ku talinayaa waliba ayaamaha dambe waa zaa'ido dadkii qurbaha ka yimid dhalinyarada ahaa ama ku koray ama wax ku bartayna waaba ka sii xag jir oo dhaqankii iyo waxyaabahaas oo dhan aad bay uga fogyihiin waxaan ku talinayaa in qofka waxa saameyn ku yeesha hab dhaqankiisa sababna u ah biicadda ku koray waalidka koriyay iyo hab dhaqan ku soo koray sidaa darteed waxaan ku talinayaa qof kastoo dhalinyaro oo Soomaali ah inuu akhriyo labada buug ee la kala yiraahdo xeerkii Soomaalidu hore ee uu qoray Evier Dr. Ahmed Buraale Ahmed Sheikh Ali Buraale ninka Ahmed Sheikh Ali Buraale waa nin gariiqaana dhakhtarna ah waa yeelna ah buugaas uu qoray xeerka Soomaalida hore waxa lagu tarjumay luqadda Ingiriiska waxa lagu tarjumay luqadda Carabiga asagoo Soomaaliya waa yaala waa buug yar oo kooban oo 30 page ilaa 40 page ah akhriso wax weyn ba kaaga baxaya buuga kale waxa weeye dhaqan dhumay dhib badan ah waxa qoray Khalifa Ashkari Diini waa midka hadda ka soo xigtay kelmadii hore labada odayba haddaan runta idin sheego waa laba oday oo 8 sano jira ama ka weyn ba labadooda oo dhaqan yaqaan ah oo waayeela oo aqoon-yahana runtii labada buugay qorayna waa dhaxal Soomaaliyeed waxaana muhiim ah qof kasto Soomaali ah inuu akhriyo dhaqan dhumay dhib badan ah iyo xeerkii Soomaalida hore labada buug waxay ku siinayaan faham buuxa oo ku saabsan sida Soomaalida xeerarka u sameeysan jireen sida u noolaayeen
iyo sidii ay dowlad u ahaayeen Soomaalidu intaan dowladnimada loo dhisay ka hor oo baadiyuhu oo igu jirtay isxukun iyo xeer nidaam ah oo la raaco sidoo kale dhaqan dhubadhib badan wuxuu ku tusi doonaa Soomaalidii dhaqankoodii say wax u karsan jireen say wax u cuni jireen say wax u siin jireen say gabdhaha u siin jireen iyo dhammaan macaamilaadkoodii oo dhan waxaan ku talinayaa qof kasta oo raba dhaqanka iyo suugaanta inuu fahmo inuu labada buug si fiican u raadiyo isla markaana uu ku daraasay